maalin maalmaha ka mid ah ayaa nin maskiin ah wuxuu hadiyad ahaan ugu keenay nabiga sallallahu alayhi wasallam xirmo canab ah. markaas ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu goostay xabad ka mid ah canabkii uuna cunay. haddana wuxuu goostay mid kale wuu cunay, haddana mid kale ilaa uu ka dhameeyo xirmadii canabka ahayd. ninkii maskiinka ahaa isagoo aad u faraxsan ayuu baxay. asxaabtii la joogtay nabiga sallallahu alayhi wasallam mid ka mid ah ayaa ku yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam, nabi allah sidee baad u wada cuntay canabka adiga oo waxna inaga siin? markaas ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam yiri, canabka uu ninka isiiyay wuxuu ahaa mid qaraar. waxaan diiday in aan wax idinka siiyo oo marka aad afka gelisaan wajigiinu bedelmo oo aad sheegtaan ama aad dareensiisaan inuu canabku qaraar yahay oo uu markaasi niyad-jab ku dhaco. sidaas darteed ayaan u wada cunay si aan farxad ugu muujiyo oo uusan niyadda ugu jabin ninka maskiinka ah. haddaba walaalayaal, qisadani waxaan ka baranaynaa wixii hadiyad ahaan lagugu keeno in aadan dhaliilin, yaraan ama badnaan, xumaan iyo wixii la mid ah oo aad sideedii ku qaadato. la wadaag walaalkaada aad qayrka la jeceshahay. mahadsanidin. مرحب بك في كل دار، فرحانين صغار وكبار، نتآلف نزور كل جار.